وحاد يدد بلايا هو ابتلاء مدوه أصحابتي رسول الله محمد لقى لا يهي حضر وحي إليه إن من كاسوي حمايان وضد حنبي أهايين وبلايا إلهي أنت بلا الأركان أنت أنا إلى قراريد وحي إهد قفنا هيا أنا مسلم بانهي هذانا واكسي وقدبو مؤمن بانهي هذانا واكسي وقدبو أهل السنة أنهي وكسي دريا أهل طريقة أنهي مع ذلك أصحابتي الكفار هي هذانا نهاي بالمصيبة أنت اللي أكتها فيري dadkaasi xunay horta waxaad gudbanayo kufrigoodu waaba cadaysteen mid kamid ah aniga aan la sheekaystay anoon dareensanayn weligoyba fikradaas qof Soomaali oo qaba inuu jiro aniga oon dareensanayn galab arbaca ah casirka anoo kitaab Nairobi ku akhriyay uu yimid guriga khamiista kitaab lama akhriyay gurigaygu ila hoyaaday habeenkii maghribka salaadii casirka weesadaan ku tukadan subaxiga ku tukaday همين كاسو دن دودان ku jirnay ma fahmin wali ninkaani waxa uu yahay meesha waxa wada macna fahmin asaabtii aan ku legdamay hameen ka dhan asna ma gamayoon anama aanan gamayoon hameen kaasoo dhan waxa doodanadu ku jirta asaabtii rasuulullaahi maxamed ninka laga celilaay marka anu waxaan moodaa ninko fudaydan ku aqaaneen nin fudayd lagu yaqaano ahay barnaamijkiisa fudayd inuu ku eg yahay meeshu dhaliilaba halkaan aad waqtiga nooga dhamaaday hadii marka waagii bariyay oo ninkii tabar loogu leeyahay maalin ka horeeyay su'aalan weydiiyay aan ku soo gabagabay markaan subaxii isla tukanay maalin ka horeeyaan waxaan weydiiyay ninka horta iyo hadaad tihiin sheekhaal ninka sheekhaal hay inaad waa hore weeyay inaad tihiin Raabi Bakr Sidiiq ma jirta horta waa maalin hore sheekana dhex martay waa jirta uu yiri intaas oo arina ka marqaatiyo oo sheekh hebel yiri oo sheekh Yusuf direedo waa ka waa yiri oo Abdullah Qudubi ya sida qorayo haye ameenka markii waagi noo bariyoon kala tagayna waxaan iri hadayni oo sheeqaltiin waxa asalkiina ila waxaad ahaydeen laninkii xal kale quraanka iyo xadiidkii qancin waayay ma ba fahmin qof Soomaali oo raafida ama shiica jira maalinta ma ugu jirtaba ninka ina si kale ku xakameeyay hadaan way waxaan hadaan leeno sheeqaltiin asalkiina iyo doqonnimo iyo mooriyaanimo wada teenay وحناقياهو انت يريو مدحو قرح ku sigta dadka lama aflagaadeeyo nasabka maxaad ugu ciyaaraysaa waad gaftay waad khaldantay adigu soo imadeen Abu Bakr Sidiiq anaha caawna waxaan ka celin lahayn Abu Bakr Sidiiq aalubeedkii dhacay oo Mooriyaan aha iyo doqon Umar ibn Khattab oo ku shaqeysto ah Soomahan caawna waxa leedahay hada soo adu muqirsanidaan hada Abu Bakrtiin Abu Bakrna leedahay doqonna wuu aha Umar ibn Khattab ana ku shaqeysan jiray aalubeedkuna dhacay inaad asalkiina doqomatihiin asalkiina soo afka anu ma dhahayo Abu Bakr doqonna ma ahayn miskiin lagu shaqeysta ma ahayn aqwal mu'miniin anu aaminsana mu'miniinta kan ugu quwada badan qalbiga xaqiisa laakiin adu arabkaaga waxa diraa Abu Bakr Sidiiq anahay haddana wuxuu Abu Bakr Sidiiq nin doqon u ahay Umar ibn Khattab ku shaqeyso aalu beed ku dhacay aadilaada haddaan dib dambe ku la hadla mac salaam weey aga tagay balak qaad intaas inay dhaaftaa wal barabay إلا القرآن كحيلين وحديث كحيلين لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل ضدك رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم يا قرآن كسيدو آية المواد قرنيس والنبي بأسامته إذا هيقتها منين أويري أو وحي والبورد نسلسوا من رأيه إنه وحيري وركيزة كم إذا الأردال كاس أبي بكر الصديق مدى محمدية أو فضل بدن نبي قد بديس عمر بن الخطاب أنا كل حاجة وسياسة لا سمية تروفية بربغاندا لا سمية وركجوغا إن حديث بخاري قلبتي سوى سياسة واي waxa sameeyay fikradaas Abdullah ibn Umar fikradaas sameeyay wax jirana ma ahan kitaabkii sunnadii ijmaacan ka keenaya in intaas ba xadiidku saxiix ma ahan hasan ma ahan dhaif ma mawduuc inuu yahay waqtiga habeenka xadiidkaas waqtiga naga qaatay iyo difaaca nimankaasi waxaan isku soo duuduubanayo hadii la helo Ali ibn Abi Talib oo isagu dhahay xadiidkuna saxiix Muslim oo noqdo Ali ibn Abi Talib oo dhahaya أفضل المؤمنين بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر فما عمره كورنا ما بدعي كرتوي وهذا ما بدعي كرتي هدينا هدي على كورنا ما بدعي كرتو هدي على به كورنا هدي دعي وين وان سكدين لا هدي على وحير وخلدنا صحيح مسلم كما جاء سهراين سو كلب حديث كآخر يعني
حدثنا فلان فلان زود محمد بن الحنفية حديثك ورينيا إن سيد علي ورينيا محمد بن الحنفية وحيري أبهي بان وحن ويدي من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله محمد كبعد ذاتك يوفي عن بان أبهي ويدي مركز وحيري أبو بكر ثم مركز ثم عمر ثم من إلى واقع الشاطئ وحنا نصير ثم من هذا إلى أمر عثمان شيخ مركز ثم أنت صدوق ما حكي مركز أبهي وحيري ما أنا إلا رجل من المسلمين أنا مسلمين تنكمل هاي ما هني مرتبة الصدق هذا هاي كلهم ماي كتاب كورتم هو بتاعي بالفير إنه صحيح مسلم هاي علي بن أبي طالب إنه ليه أبو بكر الصديق المؤمنين توقف فضل بدن كبعد عمر كحية لكن مركز يداس حديث كأسجع آخرنا يجو عنو آخرين ما ينتقل بحياة أسجع آخرنا يهدوك وقنع ومركز ليه هاي أصل كنا لما يلحون كسو جيدين شلون واحد ليه بلان حدنا واحد اللي أبو بكر الصديق الدقن عمر بن الخطاب كوش قيسوها في الجدة نكو كهلا واحد عمر بن الخطاب الإسلاميين يريكان سيد عمر نكاس اللي بهين ما بقى إسلامين بقى نكا هذا الكو كهلا حتى ما فهم قف صوماليا أو الشيعة هاجرة أما الرافضة هاجرة ما بقى أمين سني بس ولي ما بقى أنا أرجع كبعد واد دمبون اسمه قلنا يروحوا يري ولي يبقى يعرك أنا أصحاب التابانة يعني أصحاب الدفاع إذا نتاجنا هاي وأنا ما اسمه قلنا إرهمين سكور بس يجنبي هذا الأوجين وحويا مركب مصيبة إلهي كان أصحاب رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم لقى علي الله يا النبي محمد ضدك سيداوت المامي قرآن كسورة دي هذا آيات آخرية ضدك حكمتي ليغيظ بهم الكفار أصحاب رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم قفك قلبك سحماني أي أوقشوا أي مجلس الإسلام كإمام مالك أحمد بن حنبل وحي لهذين آيات حكمتي قفك وحماني أصحاب رسول الله محمد أوقشوا وحناقاه آيات حكمت إلهي كحكميه ليغيظ بهم الكفار وحكعرودو لغو عرقلين يا أصحاب رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ذاتك قال ذا قفكي نمكاس كعرودو حناقو إلى والنعبها يرهداهي آيات حكمتين نبدليه nimanka marka nasiib darrada ku dhacday Soomaaliya yihiin had waana nala sheeganaya bal waxa iga daran dhawaaq xumada fool xumadiisa wuxuu leeyahay ahlu sunnah hay ahlu dariiqana suufiyana xaq markaas waxay meesha macnaha waxaan isiri waxa qarash lagu soo qaatay inagoo ba aqoon ba qof Soomaaliya ama qof ahlu sunnah sheeganayo meel shiicana la ka saara aan garanayn aku ardaalada waxay dhigayaan suufiyadu waa shiico suufiyadu waa shiico waligood muddo dheer ay wadeen waxaan ba isiri inay lacag ku soo qaateenba Soofiyana shiicanimadina ay muujiyaan Soofiya ma baahane inay nagu tiim bareeyaan waa ka Soofiyada asxaabtii ku dhagay in la yiraahdo in ay rabaan saasan u dareemin laakiin Ilaahay baa diintiisa ku filan oo kaafinaya waxaana la ka rabaa qof kasta oo muslimihi mu'minihi inuu garto qiimaha iyo qadarka Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ummadan Muhammadiyada ugu fadhiyo ama caalamka dhanba ugu fadhiyo iyo haddana qadarka ay ugu fadhiyaan asxaabtii rasuulullaahi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waxay in xamalat alkitaabi quraanka kuwii soo qaaday oo rasuulullaahi Muhammad ka soo qaaday hadii iyagii dad xun lagu tilmaamo waxa loo socdaa waa quraanku ma jiro ogo sababtoo qof aad beelow ku sheegtay ama waa xun iyo faasiq weeyaa tiri warkii uu soo qaadahay qabasho ma lahan marka waxaan anu warkayga hadda marka u daynaya rasuulullaahi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aan jeclaano aan ku dhaganaano nabiga yaana la ku dirin balaaya iimaanaydo had bashaati noo soo gashanaydo rasuulullaahi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam inayna nacsiyan isku dayaya nasiib darrada Ilaahi dadka u keenay nimanka hadda aan macnaha sheegayo muddo dheer la doodayay midka ardaalka kamid wuxuu yiri hadiiba sideeda la doonayo faqad la suuq galiya hadii la rabo waxa la geeyaa hur mudug meesha la yiraahdo la geeyaa hur mudugna waa geeyno hawsha waa soconaysaa markaas uu rag tilmaamo wuxuu yiri ma jeerteen hebel nin leerahan ka hayna saacadna hebel nin leerahan ka hayna salebaan nin hebel leerahan ka hayna marixaanna hebel aan ka hayna cayrna hebel aan ka hayna saruuri abgaal hadda u sii wadnaa hur marka waa soconaysaa bahashan Ilaahi qadartiisa bahashoodii waxay ku socon weysay safaaradda Liibiya ee Ethiopia ama Addis Ababa ku taala ayaa lacagta la soo marsiin jiray inta raga dadka uu sheegayo kuwa ka badan oo kale inta la kaxeeyo lacag la siinay seminar jira meesha la geeyo dadkana soo toosinay lacagta lagu qaata ayagana baabu raaca la soo siiyaan waxba u helin
kuwii meeshaan laga kaxeeyo xagga la geeyey wax sahaya loogu dari maayo baabuur raaca la soo siinaya iyagii kuwoodii madaxda ahaayoo meesha joogaa sii kala dhacaya nin ka mid ahaa ii tilmaamay ii sheekeeyo wuxuu yidhi 3 goor ninka hebel waa ayagu hadda ka mid yahay 3 goor hebelna marna dhacay yiri oo lacagtii naga qaad 2 goorna hebelaa naga dhacay ninkii halka mar naga dhacay guriyo ka dhisay yiri ninkaas wuxuuba ka qabsaday 2 goor ninkiina dhacay isagu 2 shirkadood 2 goor ku kala dartay 2 shirkadoodba waa inkireen waxba naguma daranay yiraahdeen oo waxay macna u inkirayaan de wax dokumenti oo la kala qoran karaan la ninkii waa nin macna xoolo khiyaan lagu soo qaadayo wax qarsoodi ninka waa nin saboola Ethiopiana dawlad iska furan ma ahan qofka maal qabeenka lacagtiisu waa tirsan tahay marka dhowr boqol oo kun oo dollar aan leeyahay aan haysta xagaad ka keentaa su'aala galaysa qarsoodi meel ugu darsan maagay iyadoo wax dokumenti la qorin waxba uma darsan iyo ka inkireen marka haday lacagta ilaahi diintiisa soo rabo difaaciyahay lacagta haday sida loogu soo dhiibo ilaa ku fidneeyay islaamka haday ku socodsiin lahaayeen dad badan ay fidnayn lahaayeen laakiin ilaahi soo rabo diintiisa ku difaaco inay iyagu kala xadaan ay wixii halkaas ku dabar go'aan ilaahi diintiisa ku ilaaliyay waxa leeyahay ilaahi madarkiisa qiimaha badnana waa noo soo socdaa ورسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وحفظوا لكم أهنا المؤمنين هاي النبي جنا كل جنا ضد كاسنا ضد بلايسان ويا قفك سايبها برار وسنادو ماذا حكون هو قاضو أردال إنه اللي دون السني يعني هاي صوفيان كلها على الطريقة كلها هي أصابتنا في الجدين ياهي ووحلا أركين أنا أركي دونتان هل الدلالة أنت كلمة يكسر قابلنا هذا بالله التوفيق والله أعلم